Addoon madow ah ayaa helay dheeman, markaas ayuu si qarsoodi ah afkiisa ugu riday, balse ficilkiisa waxaa arkay kormeerihii goobta. Nin kale oo agtaagnaa ayaa wax walba arkayay, balse wax yar kadib, isaguna wuu helay wax u eg. Markuu wasakhda ka tiray, wuxuu ogaaday inay tahay dheeman casaan ah oo leeg ukunta qoolleyda. Wuxuu markiiba gartay qiimaheeda. Haddii uu iskiis u haysto, wuxuu qoyskiisa ku quudin lahaa qarniyo badan iyagoo aan weligood cabsi qabin. Laakiin dheeman weyn oo sidaas u muuqata, kormeeruhu si fudud buu ku ogaan lahaa. Isagoo garan la meesha uu dhigo, tuubadii biyaha oo aan meel fogayn ayaa si lama filaan ah u dilaacday. Wuxuu ka faa'iidaystay mashquulka kormeeraha, wuxuuna dheemankii ku dhuftay faraha cagtiisa u dhexeeya, isagoo iska dhigaya inuu musqusha aadayo. Nasiib wanaag, kormeeruhu ma helin dheemanka qarsoon. Ninkii si degdeg ah ayuu uga gudbay kormeeraha, wuxuuna si dhuumasho ah ugu dhuuntay cawska dhexdiisa. Isagoo cabsi dareemaya ayuu hareerihiisa eegayay, kadibna wuxuu ka soo bixiyey dheemankii faraha cagtiisa u dhexeeyey isagoo yaab iyo farxad isku dareemaya. Dheemankan wuxuu ka dhigi lahaa nin maalqabeen ah. Wuxuu ka gooyey maro surwaalkiisa ah, si degdeg ahna ugu duubay dheemanka, isagoo diyaar u ah inuu dhulka ku aaso. Laakiin markiiba bastoolad ayaa dhabarka looga taagay. Wax walba oo uu sameeyey waa la ogaaday. Wuxuu moodayey inuu dhimanayo, laakiin rasaas weyn ayaa dhacday. Kormeerihii waa miyir beelay, ciidamadii dawladdu ayaa yimid. Markay arkeen kormeerihii oo dhulka yaal, ninkii dheemanka helay si degdeg ah ayuu u aasay. Laakiin waxaa ku hareereeyey askartii, waxaana lagu tuuray xabsi.